waxaan rabaa marka hore sidii la sheegay inaan idinkaga mahad celiyo dhammaantiin qof kasta oo halkan jooga iyo inta maqan doorkii uu ku lahaa meeshaan in la soo gaaro. waxaan ognahay inaysan shaqo sahlan ahayn, waxaan ognahay inaysan hal nin ka goyn, waxaan ognahay annagu intaan idinka tabanayno idinkana kuwa idinka dambeeya inay idinka tabanayaan. annagu waxaan laga yaabaa inaan idinka tabanayno inta aad kala kulanteen waa ka jilci kareen, waa ka dabcin kareen, laakiin waxaan ognahay galabta markaad hoyataan oo bayaankii uu baxo qolo kasta in la dhihi doono maxaa xagga ugu dari weysay iyo maxaa kan u diidi weysay, kan maxaa u qaado weysay. meeshaas marka ay joogto waxaan rabaa inaan idin sheego gobolkaan hal geesiyaa laga yaqaanaa intaan ogahay. halka geesiyoo laga yaqaanaa waa ninka walaalkiis dila, ninkaasaa geesi loo yaqaanaa. maxaan sidaas u leeyahay? dadka markaad la sheekaysato tuulooyinka jooga dagaal oogayaasha yaqaaniin, kuwa nabadda ka shaqeeya ma yaqaaniin. nabadda kuwa ka shaqeeya oo u dhaga nugul ma yaqaaniin. rag hadda tiro badan oo nabad loo aasayna ma maqal. rag tiro badan oo la yidhi ayagoo nabad ka shaqaynaya ku dhinteen oo la aasay gobolkan aad uguma maqal. waa jiraan mase badna, laakiin dad badan oo ayagoo colaad ka shaqaynaya ku dhintay oo loo aasay waa naqaanaa. kuwa la dulmiyena waa naqaanaa oo ayagoo dagaal ku jirin la dilay, dhinac kasta ha ahaadeen. walaalayaalow maanta meeshaan aad joogtiin iyo casriga aad joogtiin iyo cimriga aad joogtaan, meeshaanu galabta geesiga nabadday u baahanta. geesiga dagaalka uma baahna. jidka aan ku soconno meeshuu ku dhammaanaya inaan naqaano waa. jidka aan ku soconnaa wuxuu ku dhammaanaa meeshii ay ku dhammaadeen jidadkii aad marteen ee idinkoo isla jira oo isku reera iyo kuwo kaleoo isku reera aad Soomaali ku duusheen ee isku duusheen isbaabiisaan qabyaalad darteed ee keentay intaad soo noqotaan idinku inaa islaysaan, ee keentay kuwa safka iskula jiraa maanta inay maalmo ka hor islaayeen. dadaan run isku sheegino beenay isku sheegaan. waxaan idin leeyahay walaalayaalow, waa naga garaad badantihin, waana naga caqli badantihin, laakiin waxaan u malaynaa mushkuladaa jirta u baahan in la baaro. bahasha qabyaalad la yidhaah haddii caana lagu maalaayo oo wax lagu gaaraayo oo la kala adkaanayo oo dhul la kala qabsanayo oo sharaf la kala helayo waa soo aragteen, nooma dhinna. nabadda ma tijaabin karnaa? waa naqaanaa ragga ama lugaha go-an ama gacmaha go-an ama madaxu maqan yahay dagaalada qabiilka ku dhaawacmay dhulalkaan jooga waa la wada yaqaanaa. rag nabadda u gacmo go-an ma heli karnaa oo u luga go-a. kuwa ilaahay uga fogaaday oo aan ogahay inaan niyadda ku wada haysaan isleediin hebel ninka leeraa meeshuu ku dhintay xumeeda meeshuu ku dhintay aad qalbiga ka wada og tihiin oon afka laga sheegi karin, ma ku bedeli karnaa kuwa aan dhahno hebel ninka leeraa meeshuu ku dhintay wanaagsaneeda oo fiicneeda? ma ku bedeli karnaa? waxaan ogaa intiin halkaan fadhisa oo qabiilada ka socda mid kastoo idin ka midaho waa dhibane, gurigiisa tacsiya ka jirto, si dadban iyo si toosan labadaba. ninkii kaa dhintay nin maanta dhihi kara jihaaduu ku dhinto jannou jiraa. ninkii un raganimo iska dayayo un rabo inuu warka iska leexiyo waa dhihi karaa, ama raba inuu wiilal kale ku qaldo. kuwa kaleu rabaa inuu qaldisay beri dagaalka u gala kaas wuxuu ninkaasu rag dhalay ayuu ahaa, reerku u dhintay. aawo gurigii reerku u dhis. ninkii waa dhintay gurigii reerku u dhisay aawe. biilkii ilmihiisa reerku u qoray aawe. masaajidkii u sadaqeeyeen aawe. sharaftii ammaantii u yeeshay aawe. walaalayaalo waxaan ku noolnahay camal shaydaan oo been lagu qurxiyey waa. quracdaas maran oo wax joogala iyo wax daaqa iyo wax dega ayaad isku haysataan, waa nugu yaryihiin. kii horena waa bannaanya. tacsiyaad ku wada jirtaan, guryihiinniyaa dunsan, dhibna uma aragtaan, welina mid kale sii dishaana rabtaan. waxaan leeyahay odayaashu waa dadaaleen, kullay dhibaa haysta. waa un ay raggeenaan leekaayeenna in colaaddu socotay waa u malaynaa. ragga dhallinyarada halkan jooga ayaan rabaa inaan farriin u diro iyo kuwa kalena daawo doona. cimriga aabbayaashiin iyo adeeradiin dagaalka ku gaareen ha ku gaarinina. shallayga ay qabaan maantana ha qabinina. maantaad fursad haysataan. aakhiro
cid lagu soo ammaanay oo qabiil u dhimantay haddaa ogtihiin ku dayda waa okay waa fiican tahay qof inta qof qabiil u dilay laleeyahay la helay ninkii hebel ahaa jannadii meel fiican inta aayad loo helo sheekh aayad kor saari karo waa fiican tahay wada hawsha niman guriga ku helay oo ku tacbaday oo ku xoolaystay oo ilmahoodii wax ku barteen haddaa aragteen wada hadday beddelkeeda toy qoomama tahay oo hooyadii wiilkeeda dhintay ooynayso oo adiga walaalkaa waayo ooynaysid oo midka cuuriyaankaa u shallaysan yahay maxaa jidkan ugu socotaa waxaan rabnaa bini aadam noolaan nahay caqliga iyo dareenka inuuna hogaamiyo ummadda ilaahay wuxuu garashada u siiyey inay go'aan ku gaarto waxaan aaminsanahay marka qabiilinta isku yimaado uu ku tashado aan reer hebel ku duulno waxay ku ballameen aan caqliga iska qaadno aan been isku sheegnay ku heshiiye walaalayaalow caadifadda waa fahmaynaa hal maalin ma baxayso beenta waa fahmaynaa hal maalin ma baxayso shaydaanka laftigiisu markuu kugu bato oo guri kaa dhisto ilaahay waa dhici kartaa inuu iimaanka hal mar kuu soo dejiyo laakiin tartiibay u badan tahay bal horta meeshii aan galabta geedkaan intaanan imaan joogna meel ka duwan annagoo joogna caawa meeshaan aan ka tagno waxaan idiin sheegayaa oo ilaahay igu ogyahay labada dhinacba waa la socdaa waxaad isku haysataan been waa brobagando waa been waa waxaan la taaba karin waa waxaan galabtay haddii faraha looga qaado qolo kastaa waxa ay dalbanayso aan wax ugu soo kordhaahu jirin wax uga hallaaba maahan waxaan ogahay waxaa isku haysataan maanta qoladii faraha laga geliyo hal natiijo ay caaw la hoyanaysa ma jirto hal xabo ay la hoyanaysa ma jirto waxaa isku haysataan raganimo waa oo shaydaana qurxiye geesiga maanta meeshaan ay u baahan tahay nin shaydaanka hortegi kara waa nin shaydaanka ku hor ordi kara maaha nin shaydaanka inta ka soo horjeesta dhihi kara waaye walaalkay beenaad ku socotaa dulmiyaad ku socotaa nin odagiisa gacanta ka qaban kara waaye oday wiilkiisa gacanta ka qaban kara waa waxaan la yaabay meeshaan dhiigga muslimka sida loo fududaystay ma aayadahan la isku raacsanayn oo dad aayadaha khilaafsanaa jiro ma waxaad aaminsantihiin in qaybadan ka mid hogaala yihiin sidee ku dhici kartaa inaad masaajidkana aado halkaana qof walaalka ahoo muslim ah ku disho siday isku qaban kartaa waxaa ka cararayso masaajidka ka gelaysid miyayna cadaab ahayn maxay yihiin waxa masaajidka loo galayo horta masaajidka maxaa laga rabaa masaajidka soo ilaahay naxariistiisa lagama rabo war ninka ragaya galabta inta go'aan qaatay yiraa colaadaas anaa go'aan ka gaaray anaa geesi anaa bannaanka taagan qabiil ma ahi fidna ma rabo muxuu ka baqaa miyaanay ahayn wuxuusan aaminsanayn ilaahay ballanqaadka u bixiyey inuu run yahay ilaahay ballantu qaaday inay run tahay miyuu qofkaasi ka shakisayo wuxuu isleeyahay waxaasniyow mise ballanta ilaahay waxaa kala weyn warka shaydaanka iyo muuqaalka shaydaanka oo aan natiijada lahayn dhallinyarada dhimanaysa miyaanay taariikhda aqoonin oo aanay ogeyn abtiyaashood iyo adeeradood meeshay ku dambeeyeen miyaanay ogeyn shalay kuwii dagaalkii magaaladan ka galay oo dhintay xaggey jiraan maantadan aan joogna shalay kuwii gala xaggey jiraan kuwa dhaawaca ahu oo isbitaallada yaallaa maxay ku dhaawacmeen kan dhintay muxuu helaa adduunyada waxa loo xarbiyaa waa inaad ama adduunyo waxesho ama aakhira waxesho soo maaha dadka dagaalkan galaa dad adduunyana maaha dad aakhirana maaha labadaba maaha dad adduunye maaho tacab kama helaan oo nololo kama soo gasho oo nimanka dagaalkaas ku jiro aan labada dhagax ku soo arkin nimanka meeshan ugu foosha xun waa dadka dhulkan jooga nimanka ugu caataysan oo ugu rafaadsan oo dhibka ugu badan ka muuqda waa adduun halkaasay ka joogaan aakhirana cadaabuu ka joogaa waa kii shuuq halkaas noogu sheegayo labada muslimee seeftooda kulanto labadaba waa ahlu naar marka ma xadiiskaadan rumaysnayn ma aayaddaadan rumaysnayn ma waxaanan ogeynaa jira walaalayaal waxaan warka kusoo gabagabaynaa waan warka kusoo gaabinaa annagu waa idinka tegaynaa waana idiin soo noqonaynaa waana idiin soo noqonaynaa hal midaan idinka codsanaynaa wiilashiinaanna nabaddiinnaan rabnaa dan siyaasadeed kuma wadanno xisbi kama soconno xoolo kuma sidanno waxaana dhibayso dadkeenna inay isdilaan waxaana dhibayso tacsida guryaha taallo waxaana dhibaysa qaxa waxaana dhibaayo foolxumada iyo ceebta iyo aakhira beelka waxaan rabnaa xujada inaan gudanno waxaan idinka codsanaynaa
idinkoo ka duwan meesha aan idinkaga tagnay meel ka sokaysa jooga inaan idinkugu nimaan walaalayaalow misana walaalayaalow adeerayaalow waxaan idinka baryaynaa nabadda qalbiga u fura dhib idin wax aad ka heshii weysaan idinma dhex yaallaan qalbigiinna xiran qalbigiinna nabadda ka xiran oo shakiyaa xiray shaydaana xiray afkaad nooga sheegaysiin shaydaanka inuu baxay ma bixo shaydaanku wuxuu baxaa geesiga nabadda marka la helo qolaa libinta qaado doontee ama qofaa libinta qaado doonee waana yaa la dooginayaan waxay dhihi jiray waa la doogayaan la dacaroone taariikhdu xumaha iyo nabadiidnimadu nin kastoo inaysan ku raacin ku dadaa gabagabada hadalkayga waxaa taa laba arrimood oo yaryar aan rabaa inaan sheego intaasoo dhan baraarujina iska ahayd mid waxaa waaya magaalada waxaan rabnaa inaan uga tagno guddi aan samayno meel cidlaa inaan uga tagno ma rabno guddigaas wuxuu ka kooban yahay 15 xubnood waxaa guddoomiye u ah wasiir axmed wasiir dowlaha arrimaha gudaha oo qaraamana idinla ah dowladdiinniina ah waxaa ku jira 5 xubnood iyo 5 xubnood oo ah dadka deegaanka oo magaalada degan waxaa ku jira 4 nin oo odayaal ah oo dadka dowladda galmudug ka tirsan oo aan ugu labada dhinac ka soo kala jeedo aan ugu talagalna inay kaabaan waxaa halkan jooga saraakiisha ciidamada waxaan rabnaa guddigaas iyo saraakiisha ciidamada inay isku xirmaan in nabadda magaalada iyo in dadkii magaalada ku soo noqdaan iyo in dadka kalsoonideeda la soo celiyo iyo in ehelnimadii soo noqoto iyo in shakigu baxo nabadduna jirto inay ka shaqeeyaan oon xabajoojintaas wax ka soo noqon odayaasha waxaan weydiisanaynaa inay la shaqeeyaan oo dhabarka ka istaagaan oo waxa ka xumaada ay u fududeeyaan waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaan aaminsannahay oo ku qanacsannahay oo fahamsannahay nabad deegaankan ugama imaanayso ciidan laydin dhex dhigo ma uga imaanayso mana uga doonayno ciidanku marxalad aan nabaddu ku timaaday abuuri karaan nabadda ma abuuri karaan sababtoo ah dad wada dhashay oo deegaana oo sahal yaqaan oo isguri yaqaan oo ninba gabadha walaashiis qabo oo wax kasta ka dhexeeyaanatiin sidaas daraaddeed waxaan rabnaa guddigaas in lala shaqeeyo waxaa igu dambeeya shirka soo socda sida la sheegay shirka soo socda 7 bir gudahooda rabnaa haddii ilaahay yiraahdo inuu ku qabsoomo annagu waxaan kaabaynaa dowladda galmudug waxaan abaabulaynaa dadkii ehelkiina ahaa oo nabadda wanaagga jeclaa waxaan rabnaa shirkaas qalbi wanaagsan in ugu diyaar garowdaan waxaan rabnaa tanaasul in u diyaar garowdaan waxaan rabnaa qalbi furan oo walaal wax isku weydiisto oo aan hagag iyo iska celi ahayn inuu noqdo waxaan rabnaa inaad u diyaarisaan qoladii qoleed ma aqaan in hadda nimankan ahaayeen iyo qolo kale ahaayeen ma aqaan waxa la ii sheegay qolo 2 nabadoon lahaa jirta 2 nabadoon ay leeyihiin marka loo soo sheegay waxa la leeyahay xagee loo socdaa reer hebel nabadoon hebel ha loo diro waa qoladii reer hebelkaas haddii nabad laga rabana nina loo dira haddii col laga rabana nina loo dira nabadoonnadii nabadda inaa soo dirtiin rabnaa nabadoonnadii nabadda inaad u diyaarisiinaan rabnaa kuwii dagaalka iyo wax iska celinta in dib in loo dhigaan rabnaa shirkaas wax alla wixii idinka hadlaysa inaad ka wada hadashiinaan rabnaa guri intay isla geshiin idinkoo nabada inaad ka soo baxdiinaan rabnaa annaguna waxaan rabnaa gadaal intay idinka istaagno kii wax kasi ka noqdaan iyo annaga iyo inta maqan oo kaleeto inaan dhahno noqo meesha nabadaa laga rabaa col lagama rabee walaalihiin idinla dhashay oo ilaahay kama rajaynayno inaad u baahataan haddii caqligiinu isgaari waayo idiin kale caqli celi lahaa inaan keennaan rabno oo aan dhahno war walaalihiin hadda gacanay ka gaartee haddii ayagu isdhayi waayeen waa kas haddaa ka maarantaanadna soo wacdaan oo dhahdaan dad uma baahnina waa ka sii sharaf badanta taasna waxaan rabnaa in sidaas loogu gabagaboobo ugu dambaynta dulqaadka ayaan rabaa waxay rabaan ka sheego waxaa la rabaa xaalad colaadaa laga soo baxa dad baa dhintay dadaa dhaawacmay waxaan codsanaynaa dulqaad in la muujiyo inaan la degdegin inaan la caroon haddii wax qaldamaan oo dareenkaas iyo dulqaadkaasi uu jiro waxaan baaqu dirayaa dadka waxgaradka ah ee labada deegaan ka soo jeeda iyo dadka kale ee sama jeclaha dadkan walaalka la ee ganacsatadu ay ugu horeyso ee culummadu ay ugu horeyso ee waxgaradku ugu horeeyo waxaa leeyahay walaalayaalow nabaddan bilowga ah ku soo biira ka qayb qaata u fududeeya walaalihiin wixii kala gaaray sida ay uga nabdi lahaayeen khayrkaad hore u bilowdeen aad niyeysateen ha ka niyo jebinina meeshaan nabad
ayaa ka socota ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay nabaddaas muxuu ahaa ku dhammaato oo si nabadgelyo ay ku dhammaato waxaan u mahad celinayaa mar kale cid kasta oo nabaddan gacan ka geysatay oo meeshaan in la soo gaaro ka shaqaysay oo door ku lahayd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu